saaxiibayaal soo dhawaada dhammaantiin ku soo dhawaada Dhigaal Academy. Cashirkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay nuxurkiisa. Waxaad soo aragtay button ku dul samaysma button kale. Sidoo kale waxaad arkaysaa laba button oo reversal ah sida ay isugu dul samaysmaan iyo sida markaa uu trade-kii u noqdo trade high probability ah oo aad isku hadlay karto kana ganacsan karto mar walibana aad ogtahay in uu trade-ka noqonayo trade si wanaagsan u shaqeynayo. Waxay ku xiran tahay marka hab fikirkaaga. Wax waliba waxay ku xiran yihiin waa hab fikirka iyo psychology ahaan qaabka aad markaa u diyaarsan tahay. Technicalki haddii aad hayso oo aad xirfadii hayso hab fikirkaagana markaa uu liito taa waxay ka dhigan tahay in still aad faa'iido fiican oo markaa aad ku faraxdo inaadan samayn karin sababtoo emotionkaaga iyo markaa cabsidaada ayaa waxay kaa hor istaagaysaa wixii aad samayn lahayd. sidaas darteed cashirkan muhiim ayuu ku yahay marka aad daawanaysana waxaan rajaynaya inaadan dhinac kale eegin oo aad si wanaagsan chartiska usoo eegto bal si aad u fahanto waxa halkan ka dhacayo iyo marxaladan in badan in ay kugu dhacday xalna aad u weysay ayaa suuragal ah balse waxaan rajaynaya inaad halkan wax aad kala bixi doonto faa'iido wanaagsanna in cashirka marka uu dhammaado aad kala tegi doonto. Waxaan fiirinaynaa ascending-ka marka uu samaysanayo double top sidee ayay u dhacdaa in mar waliba aan aragno ama price-ku waxaan arkaynaa in button uu isdhamaystiro. Button-ka marka uu isdhamaystiro waxa dhasho waa button kale ama in uu dhasho button-kii button la mid ah. Waxaan aragnay ascending ku dul samaysma ascending kale waxaan aragnay double top haddana samaysata mini double top taasoo ka dhigaysa triple top ama large double top with mini double top inaan helno double button ama large double button with mini double button oo kale inaan helno waxyaabahaas waa baatinada iyo qaababka isugu dul samaysmaan. Waxaad arkaysaa marka qaar baatina isku dul samaysma sida expanding ku dul samaysma reversal button oo ascending ah lugta saddexaad ayaan fiirinaynaa mar waliba iyo xaaladda markaa annagoo ka soo qaadanayno waxa dhici doono mustaqbalka waayo wixii dhacay message ayayna siinayaan waxa dhici doono si aan u ogaano waa marxaladda iyo waxa uu ku shaqeeyo suuqan. Haddii aad fahantay wixii soo dhacay waxa kuu fududaanayso in aad fahanto waxa dhici doono balse haddii aad gebi ahaanba fahmin wixii dhacay waxa soo socdana ma fahmi doontid muhiimaddu wata. sidaas darteed waxaan arkaynaa halkan in aan haysano large ascending waxaan fiirinaynaa in aan ascending kale aan helnay button kale oo ascending ah. For example haddii aad halkan ku qabato three-touch-kaaga waxaad arkaysaa inaad haysato 1 2 3 ascending ah oo mini ascending inaad halkan ka heshay sidoo kale halkan waxaad arkaysaa inaad ka heshay 1 2 3 in la jebiyey oo impulsive ahaan loo jebiyey ayaad arkaysaa for example. Sidoo kale waxaad arkaysaa halkan haddii aad ku taagto trade line-kaaga inaad haysato 1 2 3 sidoo kale halkan ayadana haddii aad ku taagto waxaad arkaysaa in ay tahay ascending kale ascending within ascending within ascending waa saddex ascending oo isku dul samaysmata oo ka dhigayso marka in aan risk entry-ga halka ka qaadano button within a button waa waxaad ku soo baratay iyo qaabka marka high probability trade ugu dhigo. Intaa ayaan ugu gudbaynaa oo button within a button cashirkii ahaa ma rabno inaan ku qorfurno kan balse waxa aan raadinayno ayaa waxay tahay cashirkan muhiimadiisa qaabkee ayaan u ogaan karaa marka uu button isdhamaystiro in waxa dhici doono iyo message marka suuqan ka qaadan doono. For example risk entry ayaa halkaa ka soo qaadatay profitkaagu ku socdaa ilaa iyo 150 pip sidoo kale waxaad soo qaadatay impulsive marka uu jebiyey waxaadna ku sugan tahay 70 pip. Waxa marka halkan ka dhacaya maxay yihiin mar waliba waxaan dhahnaa button-ku wuxuu leeyahay 90% rule oo ascending-ka ama descending-ka siyaabaha loo buuxiyo iyo waxaas waa waxaad soo baratay waxaad ku taagaysaa ray line-kaaga waxaad ku taagaysaa 90% rule-ka mini ascending-kaaga 90% rule-kiisa marka la buuxiyo waxaad dareemaysaa marka in button-kan uu isdhammaystiray. waxaad haysataa waa one button isdhammaystiray. Price-ku marka halkan awood wuxuu u leeyahay in uu laabto kadibna uu kugu soo sameeyo double top uu kugu soo sameeyo kadib adiga double top-kan impulsive-kiisa ayaa diyaar u noqonaysaa markaad ogtahay waxa halkan ka dhacay iyo waxa halkan ka dhacay waxaad ogaanaysaa waxa dhici doona waxay yihiin. Waxaad haysataa large ascending mini ascending double top intaas oo confirmation cabsi darteed suuqa haday ka reebto
marka waxaad u baahan tahay in adiga aad gadaal marka isugu laabato oo aad waxa kaa khaldan waxay noqonayaan marka anigu ka experience ahaan waxaan isleeyahay waa lot size-ka weyn waxa marka suuqa kaa reebayo iska yaray lot size-ka 1% rule iyo istiraatiijiyadda qaabka ay tahay u dhaqan waxa aad riski garaynaysan ha noqdaan waxa akoonkaaga ka go'i kara marka sidaas darteed waxaan arkaynaa 90% ruleka in la buuxiyey ayaan arkaynaa waxa aan ku baraarugayna marka annagu waxay noqonayaan in meeshan aan ka helno laba option waxaad soo baratay double topka sida loo jibiyo ama double bottomka siyaabaha loo tago trade lane-ka sida loo jibiyo sidoo kale waxaad arkaysaa in ay tahay market structure-ku silsilad isku xiran oo haddii aadan dhexda mid kamida aadan helin in labadooda in aad isku geyso ay aad u adag tahay balse cashirada dhan oo si taxana ah aad u qaadato waxay noqonaysaa marka silsilada in ay ku xiriirsan tahay adiguna aad noqonayso marka wadadii saxanayd in aad raacdo oo ay ahayd qaabka marka aad wax ku heli karto waxaad heshay impulsive waxa aad sugaysa maxay tahay psychology ahaanta mar waliba iyo nature-ka suuqa waxa uu ku shaqeeyo waa inaan helno impulsive correction inaan halkan ku helno kadibna in aan jihadii selka ahayd suuqii usii qaadano balse markaan aragno in la buuxiyey batankii 90% rule waxaan aragnay markaa in aan helnay retrace waxa aad sugayso marka waxay noqonayaan falaag kadibna inaad hesho double topkaas sida loo tago iyo markaa qaabkaad intrigaaga aad uga soo qaadan lahayd waxaan arkaynaa marka in forecastingkana waa awoodda uu u leeyahay marka in forecastingka awoodda marka aad wax ku samaynayso waa in aad leedahay siyaabo marka kugu qasbaya inaad wax ku samayso mar rabna cashirkii forecastingkana inaan halkan ku dul furno balse siyaabaha loo tago ayaad fiirinaysaa maadaama areadii weli aan la tegin impulsive correctionkan ayaan sugaya for example waxaan rabaa ama aan fiirinayaa in aan interest gareeyo in naqshad ahaan loo tago double topkayga waa midda koowaad midda labaadna waxaan isleeyahay in aan qaab noocan kaleeta u tago waxaan ku xiranayaa in aan impulsiveka koowaad sugo kadibna falaaga aan qaato waxa kale oo aan forecastingkaygu samaynayo iyadana waxay tahay in aan u tago correction ahaan kadibna 1 hour retrace candleka in aan intrigayga ka qaato qaabkaas oo forecastingkaaga iyo waxaad samayn lahayd balse muhiimaddu waxay tahay areada aad ku sugayso sidee ay noqonaysaa ama double topkaas in lasoo dhammaystirayo maanka ma ku haysa in aad forecasting halkan kusii samayso waxay ka dhigan tahay inaad og tahay ood maanka ku hayso double top in uu halkan ka imaan doono balse ka waran haddii aadanba ogeyn double topka oo halkan khasaarihii aad dhigatay oo weli ku yaallo oo aad leedahay long term ayaan lacagtan la socon doonaa ilaa iyo 90% rulkayga ayaan markaa lacagta la socon doonaa oo intaa ayaan sii haysan doonaa keliya waxaad ka fikirtay meeshan ilaa iyo halkan oo ah 230 biib oo kale inaad qabato balse kumaadan fikirin 90% rulka meesha aad ka qaadatay impulsiveka ahaan marka loo jibiyo ascendingka waa waxaad qaadanayso aad kusoo baratay qaababka aad u qaadan lahayd marka loo jibiyo impulsive ahaan iyo corrective ahaan marka loo jibiyo trade lane-kaaga way kala duwan yihiin balse muhiimaddu waxay tahay 90% rulka mini ascendingka adiga xisaabtan kugu jirtaa in ay dhici doonto marka waxaad arkaysaa marka 1 hour retrace candleka inaan halkan ka helnay entry maha cashirkan entryga ugama sheekeynayno balse muhiimaddu waxay tahay qaabka aad u qaadan lahayd ayaa ah in 1 hour retrace candleka inaan qaadano kadibna aan 25 biib waa nf ay nagu tahay marka waxaad arkaysaa inaysan marka cabsi kaa reebayn waad ogtahay meeshan dadkii emotionka ahaa iyo waxaasoo dhan inuu suuqa dadka ka saaray hadeertaana ay tahay marka dadka experience-iga ahaa wixii ay ku faa'iidayeen qof profit samaynayo experience ayaad arkaysaa adigana cabsi ayaa suuqa kaa reebaysaa ama maba ogidba waxa dhacay iyo waxa dhici doono taa oo kaliya marka double topka in uu ku samaysanayo ascendingka micnaheedu waxay tahay batankii mini ascendingka ayaa wuxuu isku dhammaystiray 90% rulkiisa taa ayaa kaliftay suuqa in uu jihadii selka ahayd marka aado oo jihadii bayda ahayd aado oo double topka soo dhammaystiro kadibna hadda uu aadi doono jihadii selka ahayd oo marka aad arkayso meeshan wixii aad ka weysay ee ahaa in aad la socoto 90% rulka ilaa iyo trade lane-kaaga halkan waxaad arkaysaa in uu noqonayo marka 90% rulkii in uu halkan dhammaystiranayo sidoo kale waxyaabaha aan mar waliba saarno meeshan oo kale waa raylane-kaaga meeshan waxaad ka qaadan leedahay intrigaaga waa qaabka marka aad u fikrayso waa trade lane-kaaga intaad u saarato 1-2kaas qaabka loo tago strategy ahaanta inaad marka usoo qaadato waxaad arkaysaa 90% rulkii in la buuxiyey ascendingka sidaana aad ku qabsatay ayaad arkaysaa impulsivekaas adigoo marka isticmaalayo
ascending within ascendingka 90% rulkiisa in la dhamaystiray message suuqa qaatay double top in lagu laabtay arkay awoodda ay leedahay ascendingka marka uu ku laabto double topka waa midan oo kale waxaan rajaynayaa in badan suuqa markaad ku aragto aad ka faa'iidaysan doonto waxaan tegaynaa lacag kale oo aan isla fiirinayno iyo CAD JPY waxaan halkan haysanaa CAD JPY CAD JPY waxaan arkaynaa haddii aan tagno for hour sidoo kale ayadana waxaan arkaynaa in aan haysano large ascending inaan ku sugannahay with mini ascending inaan ku sugannahay mar waliba kama sheekeynayno baatanka ku dul samaysmo baatanka kale waxaan ka sheekeynaynaa qaabka aan markaa double topkeena in aan ugu laabano inaan double topkeena ku laabano kadibna aan halkaa kasoo seelgarayno oo aan ognahay in ascendingku uu awood u leeyahay in uu mar kale ku laabto ascending double topkiisa in uu ku laabto waa meesha raylinka uu noo saaran yahay kadibna in aan helno 90% rulka lacagta in aan la socono ah inta raylinka noo saaran kadibna aan ku manage garayno qaabka marka uu suuqii reversal uga noqon lahaa iyo sida markaa aan aragno in uu message suuqa naga siiyo waxa dhici doono darteed waa baligaraynayna waxaan fiirinaynaa qaabka markaa uu suuqu u dhaqmo waxaad arkaysaa in impulsive correction waxaan sugaynaa dartaan waxay noqonayaan impulsive taa oo ka dhigan in aan ku sugno raylinkeena in aan ku sugno priceka si aan jihada markaa uga soo seel garayn waxaan arkaynaa in aan tagnay hadda qaabka loo tegay oo corrective ahaan ah iyo qaabkaad markaa intriga kusoo qaadan lahayd haddana waxay tahay in uu jihadii selka ahayd suuqii imaan doono waxaad heshay ascending waxaad heshay double top oo taa oo ka dhigan marka in aad buuxisay 90% rulkaaga qabatayna marka impulsivekan 630 waxay noqonaysaa qaabka iyo habfikirka marka aad u fikrayso waxa halkan ku dhaliyay in uu suuqii reversalka noqdana waxaad arkaysaa 90% rulkii large ascendingkan in la buuxiyo large ascendingka weyn kiisi labaad oo ahaa mini ascendingka with mini ascending saddex ascending oo isku dur samaysmatay ayaan halkan keenaa balse midkan isagana normalka ayaad arkaysaa 90% rulkiisa in la dhamaystirta oo ka dhigan marka in aad maanka ku hayso meeshan in ay wax iska bedeli karaan sidee ayaan message suuqa uga qaadanayaa halkan markii aan ka arko in uu suuqii dhamaystiray 90% rulkiisa message uu siinayo suuqina muxuu noqonayaa waxaad arkaysaa inaad haysato impulsive correction impulsive correction impulsive taa oo ka dhigan in halkan aad ka heshay meeshan haddii aad ka heshay ascending within ascending halkan waxaad ka heshay bull flag within bull flag taa oo ka dhigan markaa baatin bull flag ku dul samaysma baatin kale oo bull flag halka loo socdo raylinkaaga iyo double topkaaga simply markaa in aad sugayso in uu dhici doono impulsivekan double topka waxaan isla tegaynaa lacag kale oo aan ku fiirinayno marka qaabka aanu arki lahayn ascendingka iyo double topka AUD NCD ayaan isla tegaynaa waxaan haysanaa structurekeena 1 2 3 sidoo kale waxaan arkaynaa haddii aan jirno eriyadan waxaan arkaynaa 1 2 3 waxa aan hadda haysano waa corrective waxa aan sugayno simply waxay noqonayaan laba waji taa oo ah in priceku uu halkan ku noqdo eriyadan kadibna meeshan in aan ka sugno jiha sell ah amaba in aan ku sugno double topkeena forecastingkaaga waa waxa markaa adigu kuu hagayo in aad qaabkaad u qaadan lahayd marka aad aragto structureka suuqa aad uga qaadan lahayd message haddii aadan helin inaad ka joogto haddii kalena waxaad fiirinayso oo markii horeba aad double topkaaga waxaad arkaysaa in structure ahaan halkan uu ka dhiman yahay waana sababta kugu dhalinayso dhigaal academy markaad noqoto arday experience oo ka qalin jibiyey in aad ogaanayso oo ama aad sawiri karto naqshada weli aanan isdhamaystirin ama leega koowaad ee naqshada markaad aragto in aad noqonayso qof isdhamaystira oo marka aad sawiri karto waxa imaan doono mustaqbalka iyo waxa ay noqon doonaan
waxaan play gareynaynaa priceka balse aan u fiirino xaaladiisa iyo sida uu markaa noqon doono. Waxaad arkaysaa marka in la jebiyey double topkaaga. Maxaad soo baratay double top la jebiyo psychology ahaan qaabkaad markaas aad u isticmaali lahayd iyo sidaad markaa aad forecastingkaaga u samayn lahayd. Waxaad arkaysaa in loo jebiyey wax la yiraahdo structure ahaan. Structure ahaanta loo jebiyey double topkaaga waad soo baratay. Marka structure ahaan loo jebiyo, marka corrective ahaan loo jebiyo, iyo marka impulsive ahaan loo jebiyo intaba iyo qaabkaad markaa ula macaamili lahayd. Risk entry-ga waxaad arkaysaa in ay tahay meel aad ka qaadan karto oo structure ahaan marka loo jebiyo double topka risk entry-ga ayaan ka qaadanaa. Arkaysaa in price-ku markaa uu ku dhaqaaqayo kadibna in aad qabanayso. Halkan waxa ka dhacay maxay tahay? Waa muhiimadda aad og tahay in mar waliba aad fiiriso. Halkan waxa ka dhacay waa 90% ruleka ascending-ka. Maxaa yimid? Waxa yimid waa correction. Correction-kan falaagiisa ayuu sii dhiibtay oo jihada sell-ka ayuu baxay. Balse haddii uu noqdo in meeshan aad ka hesho impulsive, haddana falaag in uu samaysanayo aad aragto, maanka ku hay in haddana lasoo dhammaystiray double topkaaga intuusan soo dhicin ka hor. Waa muhiim in aad baraarugsanaato kuna fikirto waxa dhici doono iyo waxa ay yihiin. qaab noocan oo kale ah ayaan markaa u qaadanaynaa trade-keena oo aan fiirinaynaa sida markaa aan u heli lahayn haddii aan daily-ga ku laabano ilaa iyo in aan qabsano trade lane-keena waa waxa aan la soconayno trade-ka oo aan sidaa markaa u qabanayno faa'iidadeennana aan uga raadsanayno. Taa micnaheedu waa in uusan ku dhaafin markaa haddii aad aragto structure-kaaga in lasoo dhammaystiray ama lagu tagay double top in uu ku dhammaystiro. Taa micnaheedu waxay tahay in trade-kii aad og tahay in uu jihada sell-kaa soo aaday. Waxaad aragtay 1 2 3 waxaad ku fikiraysa inuu halkan yimaado kadibna uu kula laabtay oo halkan ayuu kugu soo dhammaystiray double top. Impulsive-kaana cabsi ayaa kaa reebtay. Taa oo ka dhigan markaa adigoo indhahaada shanta mar waliba suuqiinaadan gelaynin, markaad gashana in meel qaldan suuqa aad ka qaadanayso. Waxaad fiirsatay ama aad fiirsanaysaa cashirkii high probability trade-ka iyo meelaha markaa trade-ka inaad ku sugto kadibna aad ka ganacsato ay tahay. Waxaan isla tegaynaa lacagta ugu dambayso oo aan ku faaqidayno AUD USD ayaan tegaynaa iyadana balse aan iskula fiirino qaabka markaa aan uga ganacsan lahayn ama aan iskula fiirin lahayn. waxaan haysanaa AUD USD. AUD USD waxa aan ka filayno maxay noqonayaan? Waxaan haysanaa ascending. Meeshan wuxuu kusoo samaystay mini double top oo kale. Waxa aan filayno waxay noqonayaan in pattern kale halkan uu ku samaysanayo. For example, M style ilaa in aan la soconno trade lane-keena, in aan la soconno 90% rulkeena oo isaguna ah meeshan area-dan. Balse message-ka suuqa aan ka qaadanayno iyo qaabka aan markaa uga raadinayno reversal ayaa waxay noqonaysaa area-da markaa suuqa uu tago iyo message-ka markaa suuqa aan ka helno. Taa waa muhiimadda mar waliba markaad lacagta la soconayso long term ama aad ka filayso sell dheer in ay aado oo jiha sell ah, ogow markaa in aad ku baraarugsan tahay waxa dhici doono oo markaa ah in message suuqa aad ka qaadato haddii ay reversal aad ka hesho halkaa ama haddii aad ka hesho in isbeddel halkaa uu ka dhacayo waa in maankaaga marka aad hayso in meesha ay wax ka dhici doonaan. Waxaad arkaysaa qaabka loo tagayo trade lane-kaaga waa qaab noocee ah. Waxaad arkaysaa in loo tagayo trade lane-kaaga descending ahaan, taa oo marka adigu ku baraarujinayso in price-ku uu jihada kore marka uu aadi doono. Sababtoo ah daily-ga ayaan joognaa oo descending-kan aad ku confirm garaynaysaa. Haddii aad tagto 4 hour-kana si nadiif ah ayaad u arkaysaa qaabka marka uu suuqu isku diyaarinayo iyo sida uu markaa corrective-kiisa u dhaqmayo intaba. Waxaan arkaynaa marka qaabka uu suuqu socdo iyo sida aan markaa ula falgeli lahayn oo aad og tahay corrective-kiisa iyo qaabku markaa suuqu u samaysanayo descending-ka iyo sida markaa aad message uga qaadanayso suuqa. Waxaad arkaysaa in la jebiyey waxaad sugayso waa corrective kadibna message waxaad haysataa in uu aadi doono suuqa in uu ku laaban karo jihadaadii double top-kahayd. Sidoo kale rail lane-kaaga in uu halkan ku yaallo oo ah area aad fiirinayso markaa sida uu uga reversal garayn lahaa suuqa. Labadaas way ayaad haysataa kadibna price-ka belay ayaad leedahay. Waxaadna arkaysaa qaabka marka uu ku samaysmo. Waxaad arkaysaa correction uu galay kadibna impulsive ahaan u jebiyey
targetkaaga marka adigu wuxuu noqonayaa rail line-kaaga in aad halkan ku taagto ah meesha aad ku sugayso double topkaas in uu tago price-ka ayaad fiirinaysaa double topka in uu tagay aad arkaysaa price-ka hadeertaana waxa aad filayso ama aad ka sugayso waxay noqonayaan marka jihada selka in uu soo aado kama sheekaynayno qaabkee double topka loo tagay ama qaabkee loo jibiyey cashirkeeda ayaad taa daawanaysaa balse muhiimaddu waxay tahay ascending with double top taa in ay tahay trade mar waliba in uu kuu diiwaan gashnaado in aad qaadato trade-ka marka aad hesho ascending kusoo laabto double topkiisa kadibna rail line-kaaga buuxiyo shuruudahaada aad ka fiirso intrigana in aad halkaa ka qaadato oo aysan cabsi marnaba kaa reebin suuqa taa waxaan arkaynaa qaabka uu u dhaqmayo marka iyo sida 90% rulkaaga uu usoo buuxin doono price-ka si markaa long time ahna aad u haysan doonto trade-kaaga taa oo ka dhigan in aysan cabsi kaa reebin suuqii oo areadan in aad ka qaadato suuqa maaha marka 90% loo dhow yahay trade line-kaaga ama loo dhow yahay batankaaga in la buuxiyo taa waxay ka dhigan tahay in aad ka joogto trade-ka oo aad markaa qaadanin haddii aan ku taagno meesha corrective-ka uu ka bilowday oo ah 90% rulkeena ja waxaan arkaynaa in TP-gaaga uu ku dhacay iyo targetkaaga suuqa meesha aad ka filaysay in uu tago in uu isdhamaystiray ayaad arkaysaa sidaas darteed waa qaabka iyo waxa ugu fudud ee markaa ascending with double top aad ku qaban karto 1300 oo biib ayaad halkaa ka qaban kartaa adigoo isticmaalaya istiraatiijiyadaada iyo qaabka ascending-ka in lagu laabto kadibna double top lagu dhamaystiro oo sell uu soo aado saaxiibayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa cashirkeenii ascending with double top waa inoo iyo cashirka